madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta kormeer ku tagay xeryaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula hadlay qaar ka mid ah ciidamada ku jira xeryahaasi. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tagay xerada Bangala ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halkaas oo madaxweynaha uu ku kormeerayay qaybaha ay xeradaasi ka kooban tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Farmaajo ayaa sidoo kale kormeer ku tagay xerada ciidamada ee Generaal Dagabadan halkaas oo uu tababar uga socdo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii khudbad kooban u jeediyay ciidamada tababarkaasi ku jira waxaana uu ku dhiirigeliyay difaaca dalka Soomaaliya. waxa ay sugayaan dadka shacabka difaacay ka sugayaan waa idinka waa dhalinyaradiina weeye waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeena iyo diinteena san u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan horarka ah oo islaamnimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteena wanaagsaneed islaamka ay ku xadgudbay oo baneystay dhiigga islaamka baneystay oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaaleeyay oo sheeganaya inay islaan yihiin oo aan ognahay inaysan islaan ahayn waa inaan ka difaacano diinteena waa inaan ka hortagno waxay xaalufinayaan diinteena wanaagsan waxay xaalufinayaan jinsiyadeena Soomaaliyeed waxay xaalufinayaan oo doonayaan inay u diidaan dawladnimo shacabkeena Soomaaliyeed iyo dawladnimadeena inay u diidaan waxay san raali ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay la sinaato shucuubta kale ee adduunka iyo u diidan yihiin wax kale ma aha waxa ay dhibka noogu hayaan oo ay u dagaalayaan wax kale ma aha waxa weeye inaan adduunka aan ka hooseeno shucuubta caalamkana aan ka hooseeno mana doonayno inaan shucuubta ka hooseeno annagu adduunku shacabka adduunka ku nool la mid baan nahay Soomaalidu waa dad wanaagsan waa dad qab leh waa dad wadaniyiin ah laakiin inaan caddeynaa rabaa inaan xaqiijino inaan nahay wadaniyiin yaa la rabaa waxaad ku dagaalaysaan waa wadaniyad waxaad difaacanaysaan guryihiina waxaad difaacanaysaan dadkiina waxaad difaacanaysaan deegaankiina iyo dalkiinaba. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kula dardaarmay ciidamada Soomaaliya in ay kaalin lixaad leh ay ka qaataan difaaca dalka xilli dowladda ay ku jirto dagaal kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada Al-Shabaab. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.